بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan inii samaynahayaa indhaha horta bilaadanka Soomaalida waxa weeye indhaha ma jeedin markasta waa laga qalaa, laakiin hadday sacfaraa geedkaas maanta aan ini tusahayo isticmaala caanaha biyaha ku darsada. waa sacfaraan waa taqaani, waa caadi bariiska lagu darsadaa mujeedin. wakaas waxaas yarkaa timaha camal ah mujeedin, saasaa ugu daraysiin. waa sacfaraan waa taqaaniino indhaha. aniga hadda wakiyaalaha markay akhriska un baan xirtaa, maasha allah waa cabbaa. wax kasta aa cabbaysin saa ugu darsada. allahuma salli calaa maxamedi. mujeedaa waa u kaadinaysaa 10 daqiiqo, waa walaaqaysaa. hadaarti malab yar baa ku darsanaysaa. waa sacfaraankaas indhaha loo cabbaa, indhuhu kalin gareeyaa. soomaaliyey xaasada idaa xasada noocyo badan baa loo gadaa sacfaraanka, waa taqaanin. midkaas waa midka timaha camal ah, kan kale waa caadi. wax waaye wuxuu u egyahay waa vulvar, marka kaas xataa dhimala. laakiin far iyo suul baa ku darsanaysiin. wax alle waxaa cabbaysiin oo kulul baa ku darsanaysiin, fahanteen? hadda waxaa la rabaa inaad saas u qasatiin. caanuhu hadda waan kulul yihiin, intay qandac qabow fiican ka noqdaan aa marka sugaysiin haddii ilaahay idmo. hadda waa kaas. waxaan kaloo maanta samaynahayaa cilmi kale, shaqaan ku jiraa. hawshaana waa ina tusahayaa. hadda saara subscribe-ka iyo like iyo saara atmetment miyay ahayd. qofkii hadla oo babababa dadka caaya oo qabiil ka hadla, anigu taageero dawladeed baan ahay. laakiin dadkii macaaradka haddana waa soo fiicnaado, wuu soo jaray. ya qolka iyo dawladda allah noo hagaajiyo. waxaan kaloo sheegahayaa kaas horta waa kaas waa ini tusay. allahuma salli calaa maxamed. waa kaas. waxaa kaloo jira mataqaaniin oan raba inaan inii sheego. horta soomaaliyey haddaan hal wax inii sheego, walaalayaalow, in laysmaqlo oo laysrespecta gareeyo oo la xishoodo oo dad walaala la noqdo oo la kala dambeeyo maxaa ka fiican? kow mideeda kaleeto waxaa kaloo jiray mataqaaniin oo aan arkay daraad waxaa la qabtay niman caruur xaday. caruurta ha xadeene idinkaaba signaal bixinaysiin. signaalka a bixinaysiin wuxuu ahaa nimankii markii la qabtay. nimankama horey baa dadka ummadda laga tusaa. waxaa arki jiray anakoo hadeertaan gabdho intaan lacag ku leenana heblo haddaan u tago waxa weeye waa kuu soo baaqahayaa, la soco. markaan kuu soo baaqo waxa weeye qoftii waa hela, la soco. markaas meesha iigu imow. marka waxa weeye waxaa moodaa meesha in laysku baaqahayo oo arrinta la moodido arrintu ay tahay nadbaarki ay tahay. marka waxaa fiican in waxaa fiican si diblomaasiga oo siyaasadaysan oo qurxoon wax loo qabto. caruurta markii qof dembi lagu qabto hore meediyaha lagama keeno ilaa la ogaado wixii ku xirnaa, wixii ka dambeeyey, ilaa maxay silsiladu intee socotaa. nimanku ma soomaalibaa, ma dad soomaali u ego af soomaaliga bartaybaa. laakiin nimankii haddaad meediyihii keenteen hawshii waa kashifan tahay. wixii xiriirka lalahaa iyo wixii contactiga lalahaa wax carara iyo wax isqariya iyo wax lacag bixiyay noqonahayaan. marka soomaaliyey meeshaan tala kuma haysiine sida isku dhaama ma fahanteen? sida isku dhaama oo wuxuu sir hayni ahaadeen. oo qofka markii dambi lagu qabto 2 wiig ugu yaraan inta baaritaanku socdo banaanka ha keeninina. markay wuxuu dhammaadaan oo qofka xiriirkiisii iyo qorshihiisii iyo intuu ku lug lahaa iyo intuu ku xirnaa, markaas ayaa banaanka lasoo dhigaa. laakiin qof alle qofkaad qabatiin haddaad isla markiiba banaanka la keeno maxaa talaa? hawshii waa kashifantay. midada kaleeto 8 qof oo hadda ka hor qabateen mise 11 qof bay ahaayeen. xagee ku dambeeyeen? mise lacag baa la bixiyo laaluush?
kuwaan oo kale mar hadda ka hor baad qabateen oo soo bandhigteen aawe noloma sheegin resultaatadii waxay ku dhamaatay sidaas iyo maca salaamo khayr baan inii rajaynayaa